Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlayaa 5 khalad oo dhalinyaradu samayso maalin kasta kuwaas oo saameeya mustaqbalkooda iyo guushooda iyo horumarka nolosha. Qodobadani waxay ku salaysan yihiin cilmi iyo daraaso ku saabsan dabeecadaha bini'aadamka. Qodobka koowaad daawade waa waqti lumis. Khalad weyn waa waqtiga oo lagu lumiyo waxaan faa'iido lahayn. Dhalinyaro badan waqtiga waxay ku lumiyaan isticmaalka xad-dhaafka ah ee social media, daawashada TikTok, ciyaaro iyo games. Cilmi baarisyo ayaa muujinaya in dadka waqtigooda si fiican u maareeya ay helayaan fursado guulo oo badan. Waqtigu waa kheyraad aan mar labaad la heli karin, waana kheyraad Ilaahay subxaanahu wa tacaala inugu manaystay sidaynu uga faa'iidaysan. Daawade qodobkaynu ku xiga waxbarashada iyo cid. Dhalinyaro badan ma siiyaan muhiimad ku filan waxbarashada iyo barashada xirfadaha cusub. Cilmi baaris maskaxda dhalinyarada waa waqtiga ugu wanaagsan ee lagu dhiso xirfado iyo aqoon. Qofka waxbarashada dayaca wuxuu xadidayaa fursadaha mustaqbalkiisa. Daawade qodobkaynu ku xiga waa saaxiib xun. Saaxiibka aad la socoto wuxuu saameyn weyn ku yeelanayaa go'aamada noloshaada. Fiisigiska wuxuu caddeeyay in dadku ku dayanayaan dadka ku dhow. Saaxiibka xun wuxuu horseedi karaa dabeecado xun, halka saaxiibka wanaagsan uu ku horseedi karo horumar. Daawade qodobkeena ugu dambeeya waa caajis iyo guuldarro. Caajisku wuxuu dilaa kartida qofka. Cilmi ahaan, ficil joogto ah ayaa ka fiican sugitaan iyo quus. Guushu waxay timaadaa dadaal, samir iyo isku day mar walba. Haddii aad rabto guul, iska ilaali 5tan khalad. Bilow maanta inaad waqtigaaga ilaaliso, wax barato, saaxiibo wanaagsanna raacdo ama aad samaysato. Daawade midda ugu muhiimsan ku xirnaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Qof walba inta uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran yahay ama uu wanaajinayo xiriirka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noloshiisu samaynaysa isbedel. Mar walba waad ilaaliso amrada Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kuu fududaanaya nolosha. Ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu isku xirno nolosha inteeda oo dhanna waa inoo hagaagaysaa. Daawade mahadsanid.